Assalaamu calaykum kula wanaagsan muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadanayaa dalka Morocco taariikhdiisa gaarka ah iyo cajaa'ibta uu leeyahay dalkan. Morocco waxaa loo yaqaanaa boqortooyada dalka Morocco waa waddan ku yaala waqooyiga qaaraddan Afrika waxaana lagu magacaabaa dalka Maghrib. dalkan waa mid ka mid ah dalalka Afrika ee saameynta ku dhex leh kubadda cagta markii laga hadlo waqtigani koobka adduunka ayayna wacdara ka dhigayaan isla hadda. dalkan Morocco waxaa ku nool dadyow kala duwan oo aad u fara badan laguna qiyaasay 37 milyan oo qofood tirada dadka. badi dadka ku nool dalkana 99% wax ka badan waxay haystaan diinta islaamka. dalkan waxaa loo hadlaa luqado kala duwan oo cajiib ah. caasimada rasmiga ah ee dalkan waxaa lagu magacaabaa Rabat. magaalada ugu weyn dalkana waa magaalada Casablanca lagu magacaabo. luqadaha rasmiga ah ee dalkan looga hadlo luqadda koowaad waa luqadda Carabiga, tan labaadna waxaa loo yaqaanaa luqadda Amazigh. sidoo kale waxaa looga hadlaa dalkan luqado kale oo ay ka mid yihiin luqadda Moroccan Arabic, Hazzania Arabic, luqadda Berber iyo sidoo kale luqadda dalka Faransiiska. luqadaha ajaanibta ah ee dalkan looga hadlana waa luqadaha Ingiliishka iyo sidoo kale Isbaanishka. diimaha dalka dadkan ay haystaan 99.6% waxay haystaan diinta islaamka, 99.23% diinta sunniga ayay haystaan, 0.45% diinta shiicada ayay haystaan, 0.3%na waa diimaha kale. sidoo kale diimaha Kiristaanka iyo Yuhuudda ayaa dad aanan dhammayn hal haystaan. dalkan waxa uu leeyahay baarlamaan waxaana boqorka ah Maxamed V2. ra-iisul wasaarena waxaa ka ah Aziz Akana nin lagu magacaabo. aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka ay leeyihiin dalkaasi 446,300 oo kilomitir square ayuu dhan yahay badka dalkaasi. tirada dadka ku nool dalkana qiyaastii ugu dambeysay 2022 la sameeyey waa 36,767,655 qofood waana dalka 39aad ee caalamka markii loo eego. lacagta rasmiga ah ee laga isticmaalo dalkan waa lacagta Moroccan dirham lagu magacaabo loona soo gaabiyo MAD. baabuurta waxay isku dhaafaan marka la joogo dalkan dhanka midig. taariikh ahaan dalkan waxaa lagu yeeri jiray markii hore al-Maghrib al-Aqsa waana mid ka mid ah dalalka Afrika saameynta leh. erayga Morocco waxaa laga keenay magaalada Marrakesh lagu magacaabo taas oo ahayd caasimad ay xukumi jireen khaliifiintii al-Muhad lagu magacaabi jiray. cajaa'ibta u gaarka ah ee dalkan ayaa markaan mid kugu sheegaya iyadoo dalkan uu leeyahay waxyaabo kala duwan oo cajaa'ib ah aad iyo aad u fara badan saameynna leh markii loo eego. dalkan waxa uu dunidu u iibgeeyaa waxyaabo kala duwan oo dalal kala duwan aysan haysan waana mid ka mid ah dalalka kaliya ee xuduud la leh badda Atlantika iyo sidoo kale badda Mediterranean-ka lagu magacaabo. Morocco waa dal saameyn leh luqado fara badan ayaana dalkan looga hadlaa oo dadka kala duwan ay isticmaalaan. sidoo kale luqadda dalka Faransiiska iskuulo ayaa lagu dhigaa oo dalkaasi ku yaala. waddankaasi waxaa laga helaa taleefano kala duwan oo aad u raqiis ah dunida kale markii loo eego waana xog saameyn leh waana mid ka mid ah dalalka saameynta leh. dhanka kubadda cagta markaan eegno dalkan Morocco saameyn badan ayay leeyihiin ciyaartooyda dalkaas. koobka adduunka ayay hadda ka gaareen semifinalka wareegga afardhamaadka iyagoona ka adkaaday wadamo fara badan oo ay ka mid yihiin Portugal, Spain iyo sidoo kale Belgiumka. wareegga afardhamaadka ayayna taagan yihiin waana mid ka mid ah dalalka Afrika taariikhda u dhigay. mana jiro waddan Afrikaan ah oo gaaray wareegga afardhamaadka tartanka koobka dunida ee mondiyaalka dunida ee hadda ka socda dalka lagu magacaabo Qatar. haddana waxay taagan yihiin wareegga afardhamaadka tartankan iyagoona ciyaartooyda dalkan saameyn aad u fara badan leh. wax walba ayayna sameeyeen dadaal badan ayayna bixiyeen. taariikhda kubadda cagtana diiwaan muhiim ah ayay hadda ka soo galeen oo aan la dafiri karin runtii waana diiwaan cajaa'ibtiisa leh oo sinaba aan looga maarmi karin. muuqaalkii maanta intaan ayaan kusoo koobayaa.
waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena. Tani muuqaalkeena xiga maalinta beri waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo amaana Allah.